waxaan doonaynaa inaad codkiina la siisaan oo aad nagu siisaan barnaamijka iyo fikirka aan soo bandhigno ee aydaan nagu siinin haddii aan la yidhaahdo muumala aydaan nagu siinin mana siisan codkiina waxaan ku soo dhaweynayaa maxamed axmed ibraahim ilka case oo isaguna ka tirsan xildhibaanka iga dambeeya oo kelmad kaaban soo jeedin doona madaxda xisbiga Faysal Cali Waraabe labada musharax Jamaal Cali aad baan idin salaamaya waxaan mar labaad mahad u celinayaa dhammaan horta taageerayaasheeda maanta sida fiican u soo baxay waxaan mar si gaar ah u salaamayaa taageerayaasha musharaxa maxamed axmed ibraahim ilka case ayaa si gaar u salaamaya haddaan taa ka gudbo cadceed baa la taagan yahay ku dheeraan meelna maalmo badan baa loo haray waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin sida fiican ee aad u muujisaan taageerada waxaan leeyahay halkaa inaad ka sii badisaan mooyaane inaad hoos ku dhicin waxaan kaloo idin sheegayaa dadku iskuma jiraan waxa weeyaan cidda aad dooranaysaan waa taqaanaan iskama dhexaysiin kartaan waxa weeyaan qofka codaynaya waa inuu u codeeyaa cid uu hubo cid uu ummadda dhex keeno cid uu yaqaan kartideeda allahu akbar ummadda sabirka badan leh reer awdal la hadaayo xaqooda allah u soo celiyo ilaahay ha guuleeyo ilaahay khayrka ha waafajiyo dowladda magaca ee reerka dadka taageersan ee daacadda u abaan salaamayaa waxa weeye walaalayaal shimbirina codkeeda cida baan maqlayay anigu waxaan leeyahay anigoo nin muwaadina muhiimaddeedu waxay tahay walaalayaal haddaad annagana doorataan waxaan diyaar idinla nahay inaan ka qabanno dhibaatooyinka ka jira degmadeenna kuwaasoo ay ka mid yihiin garoonla'aan kuwaasoo ay ka mid yihiin eerboodla'aan kuwaasoo ay ka mid yihiin waddooyinla'aan kuwaasoo ay ka mid yihiin midnimo la'aan waxaa walaalayaal annagu u diyaar nahay inaan ka qabanno xisbiga niyuu ciid waxaan ka dhex aragnay siyaasaddiisa inuu diyaar u yahay inuu degmadeeda wax la qabto sidaasaan annagu ku galnay walaalayaal idinkoo waqti badan reerda joogay waxaan idin leeyahay haddaad naga dhex aragtaan danihiinna na doorta waxaan ku soo noolayaa maalmo badan intii soo jeedinayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الله رب العالمين إلهي بمهله إنه سوتو سينا وعكمة النساكة سكوكي كيني هل يا مهله هذا إلهي كسوكو أنا مقعي اللي من عمر ميعاد عينان وحنا هاي قدومية دقمدا حسبك وعد وحنا هذا كسلامية مدحدا حسبك قدومية حسبك فيصل علي ورابي مدحوينها حسبك جمال علي حسين مدحوينه كحجينكا معايا هذاني عبد الرشيد حسن متان دمان مدحدا حسبكنا هذا كسلامية وحن لا يهنوا الأذان انت كبعدي وحن سلامية غلده haween ka tirada badan ee meesha jooga dhalinyarada dhammaan bahda saxaafadda dhammaantii waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa iyaga laftigooda u baahan in la salaamo ciidamada amniga oo u shaqaynaya si heer qaran ah waxaan leeyahay dhammaantiin sidaa ugu shaqeeya xisbiyada qaranka iyo shanta xisbi ururba sidaa ugu shaqeeya odhan lahaa maxadaanay maamulka degmada sida hareyba loo yidhi haddii aan soo jeesto barnaamijka xisbiga horaa loogu soo dhawaajiyey run ahaantii waxqabadkiisa iyo qaabka uu xisbigu u shaqaynayo odayadii aqaladii baa ka soo hadlay xildhibaanadaa ka soo hadlay waxaa la odhan lahaa markaas waxaanu ku raacnay xisbiga awci anugu runtii haddaan iska sheekeeyo lafteedu waxaan ahaa xogeeyey xisbiga udub wakhtigii ugu dambaysay laakiin maanta waxaan ahay gudoomiyaha degmada ee xisbiga ucid waxaa halkaa ka dareemaysaan in xisbigii udub ee qubadda weynaa oo ku soo shubtay xisbiga ucid inuu ku soo shubtay baad halkaa ka dareemaysaan markaa waxaan leenahay walaalaha taageerayaasha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka inay u adkaystaan bisha uu kaambeynku socdo oy si fiican oo qurux badan ugu soo baxaan
waxaan ka wada daaranaynaa madaxdii xisbiga oo maanta dib nooga dhacday laakiin iman doonta haddii ilaahay yidhaahdo maalinta xigta een leenahay kaambeenka iyaguna iman doona haddii ilaahay yidhaahdo taasna waxaa shacabka u sheegaynaa inay raalli nooga ahaadaan oo ay nala soo dhoweyn doonaan maalinteeda waxaa kaloo halkan ka sheekayn lahaa rumaantii xisbigan waad dareemaysaan inuu xisbi u qalman yahay inuu xambaaro dowladnimo waayo guddoomiye xisbiga Faysal Cali Waraabe ayaa u ku wareejiyey dhalinyar sharaf leh hantina haysata oo u baahnay inay dalka wax ka gurtaan rumaantii sidaa la ajligeedana waxaan leenahay dhammaan xildhibaanada la soo xulay waa xildhibaano u qalma inay ka soo baxaan shaqada u taala bedeli doona albaabada laga soo furanayo dadka yeelan doona sharaf iyo karti ay kuwa dhaqmaan shacabkooda degmada Boorama iyo halkan jooga marka shacabka waxaan leeyahay waa inay u dhagan nuglaadaan ciidanka oo ay u dhagan nuglaadaan oo ay ku soo yaacin waxaan ku soo gabagabayn lahaa waan islaamina mar labaad xafladiina intaas ay noogu xidhan tahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh